Inkastoo noloshu kala dabeecad gedisan tahay, haddana hadal wanaagsan ayaa laga yaabaa inuu u ekaado aflagaadeyn, laakiin markasta macnaheedu ma ahan in qofku wax qalad ah sameeyay. Laakiin dadka intooda badan dabeecadda nolosha iyo mowjadaha nolosha ayaa iska wata oo ma laha dabeecad sax ah oo loogu soo xiriiro. Taasna waxay sababtaa shakhsiyad dulleysan oo aan lahayn midab iyo mabda'. Balse halkan waxaan ka soo jeedinayaa liiska 9 nuuc oo ah waxa loogu yeero habdhaqannimo galgacal leh oo runtii tilmaamaya in qofku maskax ahaan sarreeyo. Balse daawade, habdhaqannadan waxaa laga yaabaa inaysan macquul kula noqon ama ay kula noqdaan habdhaqanno caadi ah, laakiin ha yaraysan. 1. Dalbashada xaqaaga. Ma taqaanaa sida xaqaaga loo dalbado? Waxaa laga yaabaa inaad aragto dad idaacadaha ka hadlayo oo dhahayo dowladda waxaan ka dalbanaynaa xaqeenna. Laakiin dadkaas waxaa ka daran adiga oo xaqaagii dayacay. Tusaale, waxaad aaday dukaan waxaadna ka soo iibsatay kareenka tinta, kadibna waad isticmaashay. Markaad isticmaashay kareenka, waxay bilowday tintaadu inay daadato ama waxyeello ka soo gaadho. Kadib maxaad samayn lahayd? Waan ogahay waad iska aamusi lahayd, kadibna waxaad leedahay waa la igu gaaday kareenkan dhacay. Kadib qof kale ayaa iibsaday kareenkii, sidii kugu dhacday ayaana ku dhacday. Waa la sii iibsaday kareenkii ilaa dad badan, kadibna waxaa la ogaaday in kareenka ninkan gado uu yahay mid dhacay, xilli dadkii ay timahoodii waxyeeloobeen. Kadib mid ayaa arrinkii maqlay, isna wuxuu furtay dukaan, wuxuuna keenay kareemada jirka. Isla adigii kareenkii hore ku waxyeeloobeen timahaaga ayaa iibsaday. Markaa iibsanaysay waa lagu ammaanay kareenkii, kadib waad iibsatay, waana isticmaashay. Kadib nabro ayaa maqaarkii ka soo baxay. Kareenkii waxa uu kugu riday cudurro ka mid ah cudurrada maqaarka ku dhaco. Waad yaabtay. Laakiin ninkii dukaanka furtay oo kaa iibiyey kareenkii dhacay hawshiisa ayuu sii watay. Dad badan ayaana gadaasha iibsaday, waxaana ku dhacay wixii kugu dhacay oo kale. Marka su'aal, yaa qaldan, adiga mise dukaanlayaasha? Isug wax yar aniga kuu jawaabaye. Waxaa jira maamaha Soomaali ah oo tiraahda mar idagay Allah baa idagay, mar kale idagase aniga isdagay. Hadduu qof walba xaqiisa dhacsado, dambiile ma guuleysteen. Waxaa laga yaabaa in ninkii shalay tintaada u sababta ahaa inay xumaadaan oo isla asigii kugu caayo timo xumo, asagaana sabab u ahaa oo kaa iibiyey kareen dhacay. Waxaasoo dhan waxaa ka sii daran dukaanlihii kale ee ogaaday inaysan dadku xaqooda dhacsan karin, kadibna furtay dukaan ee keenay kareen dhacay oo haddana isla dadkii ka iibiyey. Markaad xaqaagii dhacsan weysay, waraabe kastaa wuxuu u soo shaqo tagay in hilibkaaga aan xaqiisa dhacsan karin uu lacag ka sameeyo. Mid jaamacad kuu furtay oo ku yiri waxbaan ku barayaa lacag keen, lacagta uun kugu kordhiya, waxuu ku baray iska dhaafay kugu dulleysta asagoon hal eray ku barin. Mid raashin dhacay kuu keena oo kaa gada. Waraabayaasha sidaas sameynaya waxay ogaadeen inaad xaqaaga dhacsan karin, marka waxay rabaan ayay iska sameynayaan, adigaana ku waxyeeloobaya. Xaqaaga oo dhacsataa waxay ilaalisaa shakhsiyadaada iyo sharafkaaga. 2. Joojinta shaqada. Markaad aragto adigoo shaqaynaya, maamulahaagana uu ku ammaanayo oo uu ku leeyahay waxaad tahay qof wanaagsan, laakiin adiga aad dareemayso ciriiri iyo dhibsasho dhanka shaqada ah, inaad isaga tagto ayaa sax ah si aad naftaada u siiso xaqeeda. Marka uu ku leeyahay maamulahaaga waad wanaagsan tahay, waa runtiis oo naftiisa ayaa xaqeedii siisay, laakiin naftaada ayaa ka tagtay isaga dartiis. Taasna waxay kugu keenaysaa ciriiri nafsi ah. Mushaharkaad rabto qaado ama si kasta ha kuu ammaano, adiga ciriirigaas nafsiga kama baxaysid ilaa naftaada aad xurayso. Saddex, diidista xanta. Markaad asxaabtaada soo dhex gasho, isla markaana ay xamanayaan isla qof iyaga ka mid ah oo markaas ka tagay, ku dheh asxaabay joojiya xanta. Laakiin haddii aad sidaas dhihi weydo, waxaad ogaataa markaad baxdo adna in lagu xamanayo. Caadiyanna diinteenna kuma banaana xanta, iska diid xanta. 4. Kala saaridda noloshaada shakhsiyadeed iyo nolosha asxaabtaada. Inkasta oo ay caadi tahay in la weydiisto macaamiishaada ama saaxiibada in aysan ku dhibin wixii ka dambeeya xilliga jiifka ama hurdada, waxay u horseedi kartaa isfahan la'aan. Si kastaba ha noqotee, dhakhaatiirta cilmi nafsiga waxay aaminsan yihiin in awoodda lagu kala saaro noloshaada shakhsiyadeed iyo noloshaada asxaabeed in aysan ahayn dabeecad xumo, laakiin ay tahay hab wax ku ool ah oo looga hortago dilitaanka nolosha. 5. Qaadashada booskaaga. Inaad qaadato booskaaga waa muhiim. Booskaaga waxaan ula jeedaa heerkaaga. Ha aqbalin heerka aad joogto in lagaa hoos mariyo iyadoo lagu leeyahay hadallo isla weyni ku dheehan tahay iyo sid. Dadku dad wanaagsan way ku jiraan, laakiin inta alla ka cabsata iyo inta markaad iska dhicdo cabsata waxaa badan inta markaad iska dhicdo cabsata.
marka hadallada isla weynida iyo sidhi ka buuxdo yaysan kaa hoos marin booskaaga ama heerkaaga. 6. Inaad wax u qabato naftaada. Ku noolaanshaha naftaada ee dadka kale waxay u ekaan kartaa sharaf, laakiin waxay kuu horseedi kartaa cawaaqib xumo. Ballanqaadyada cilmi nafsiyeedka micnaheedu waa in qofku kala kici karo rabitaankiisa iyo himilooyinkiisa kuwa la soo rogay, uuna riyooyinkiisa rumeeyo. Ka sokow, dhakhaatiirta cilmi nafsiga waxay sheeganayaan in dadka leh isku filnaansho ku filan oo awood u leh inay wax u qabtaan naftooda ay dhisi karaan qoys faraxsan oo ay noqdaan waalid wanaagsan. 7. Inaadan ka baqin aragtida dadweynaha. Awoodda si xor ah loogu muujiyo shucuurta iyo fikradaha ayaa astaamaha ugu muhiimsan ee shakhsiyadda xoogga leh. Haddaba daawade, ma jiraa habdhaqanada mid ka mid ah oo aad leedahay ama kay jeclaan lahayd inaad lahaato? Nagula wadaag qaybta commentiga fikirkaaga, kuna soo biir kanaalka haddii aadan ku soo biirin weli. Waad ku mahadsantahay daawashada fiidiyogan. Mahadsanid.